السلام عليكم سو dhawaada asxaabi waa tahay daawadayaal haddii maskaxda aadamuhu ay computer ahaan lahayd maxaa dhici lahaa intaynaan bilaabin barnaamijkeennan fadlan fiidowga like saar haddii maskaxda aadamuhu ay computer ahaan lahayd waxa ay fulin kari lahayd 830 oo trilyan oo howlgala halkii ilbiriqsiba computerka ugu awoodda badan dunida ee loo yaqaan blue gene waxa uu maamuli karaa eber 2% xogtaas maskaxda aadamuhu 2% ayay ka tahay jidhka bini'aadamka culayskeedu waa 1 kiilo iyo badh waxay ka kooban tahay 100 bilyan oo dareemayaal ah sidoo kale samaysankeeda guud 75% waa biyo sanadka koowaad ilmaha maskaxdiisu 3 jeer inta ay ahayd in leeg ayay kortaa ilaa qofku 18 sano ka gaadho korriinka way wadaysaa riyooyinka waxa la rumaysan yahay inay yihiin isku dhaf malaawaala arrimo jir ahaanad iyo qodobo neerfayaasha la xidhiidha waa astaan muujinaysa in maskaxdaadu ay shaqaynayso si ka badan marka aad soo jeedo waxayna ka turjumaysaa xitaa marka aad hurdo in maskaxdaadu shaqaynayso maskaxdu waa xubinta ugu duxda badan jidhka bini'aadamka 60% waa dux maskaxdu marna xanuun ma dareento gudaheeda inta la og yahay sida xubnaha kale u dareemaan xanuunka iyadoo uma dareento madax xanuunka waa xanuun ay dareemaan murqaha iyo neerfayaasha madaxa ku jira taasi waa sababta marka la sameeyo qalliimada maskaxda loo fuliyo isagoo qofku soo jeedo markastoo aad weynaato maskaxdaadu way sii yaraanaysaa sidoo kale waxa la xusaa qofku marka uu soo gaadho da'da 20meeyada inuu bilaabo luminta kaydka xasuusihiisa oksijiinta iyo dhiigga jidhku isticmaalo 20% waxa qaadata maskaxda waa xubinta ugu muhiimsan jidhka bini'aadamka sidoo kale waxa la xusaa in gudaheeda xididada dhiigga ee dhexmara dhererkooda guud u gaadhayo 100,000 mayl guud ahaan masaafada dhulka ee labada cidhif ee dhulbadhaha taga waa 24,000 mayl 4 jeer ay xididadaasi ka dheer yihiin dhulka celcelis ahaan 70,000 fikradood ayuu qofku sameeyaa maalinkii oo maskaxdu soo saartaa cilmi baadhisadu waxay intaas ku darayaan in maskaxda ninka ay 10% ka weyn tahay haweenka sidoo kale waxay muujinayaan in maskaxda dumarku ka dareemayaal badan tahay tan ragga taasoo u sahlaysa inay si dhaqso ah shaqada u qabato markaynu aragno sawirro waxay indhaha iyagu qabtaan sawirrada oo gedisan durbadiiba maskaxda ayaa toosisa oo sawir caadiya ka dhigta barnaamij hore aynu kaga hadalnay maskaxda diilinta cad xagga sare ka soo baxaysa ka daawo qofku markuu hurdada ka soo kaco maskaxdiisa waxay leedahay awood ay dab ku siiso ama ku shido laambada ilayska cuntooyinka badda ayaa ah kuwa ugu wanaagsan ee faa'iido u leh maskaxda ay siidha iyo duxda ku jirta ayaa maskaxda ka saacida inay si wacan u shaqayso xasuuso badanna soo celiso halka khamrigu uu yahay cadowga ugu weyn ee maskaxda dareemayaasheeda kala fura oo dhaawaca haddii dhiigga maskaxda taga uu hal mar istaago muddo 10 ilbiriqsi ka yar ayuu qofku ku miir daboolmayaa sidoo kale qofku markuu dhinto maskaxdiisu muddo 5 ilaa 6 daqiiqo ah ayay sii jiri kartaa barnaamijkan xiisaha badan ee ku saabsan maskaxda haddii aad wuxuu ka faa'iido fiidiyowga like saar siina share garow. Assalaamu calaykum.